waxaynu ku hormari doonnaa wararkii ugu dambeeyey ee dalkaasi Ukraine iyo dagaalka ka socda waddankaasi. dowladda Ruushka ayaa waxa ay sheegtay in ay doonayso in ay awood ay ku gasho 5 magaalo oo ku taala waddankaasi Ukraine. dowladda dalka Ruushka ayaa waxa ay soo jeedisay in 5 magaalo oo hadda go'doonsan ay doonayso oo ay caasimadu ay ku jirto in si awooda ay ciidamadu ay ku galaan. ciidamada ayaa waxa ay yihiin kuwa soo dhameystiray ayaa la yiri la wareegista gobolka Donbas, waxaana dowladda waddankaasi Ukraine ay khasaaro weyn ay gaarsiisay ciidamada Ruushka ee iyagu isku dayaya in ay magaalooyinkaasi gudaha ay u galaan, kuwaasi oo lagu qasbay inay dib ay u laabtaan. iyadoo sidaasi ay jirto, dowladda waddankaasi Turkiga ayaa waxa ay sameynaysaa isku day lagu doonayo dadaalo diblomaasiyadeed oo xal loogu raadinayo in la soo afjaro dagaalka ka socda waddankaasi Ukraine. xukuumadda Kiev ee waddankaasi Ukraine waxa ay rajo ay ka muujisay in ay iyadu ay doonayso wada xaajood lagu dhameynayo dagaalka ka socda waddankaasi. dagaalkaasi oo bil wax ka badan hadda ku sii siqaya ayaa waxaa la tilmaamay in dowladda waddankaasi Ruushka ay xoojinayso duulaankeedii waddankaasi Ukraine. wasaaradda difaaca Ruushka waxa ay sheegtay in 1351 askari oo Ruushiyaan ah tan iyo duulaanka marka uu bilowday in lagu dilay, waxaana sidoo kale la tilmaamay in ilaa iyo 14,000 oo askari la dilay, 16 kalena dhaawac ay soo gaareen. waa 16,000 oo kalena dhaawac ay ka soo gaartay ciidamada waddankaasi Ukraine. waxaa la xaqiijiyay in hadafyadii dowladda Ruushka ee waddankaasi Ukraine ay marxaladii ugu horeysay ay ka soo gudubtay. wasaaradda difaaca Ruushka ayaa waxa ay sheegtay in ciidamadeedii cirka ay duqeyn la bartilmaameysadeen nidaamyada heer difaac ay dowladda waddankaasi Ukraine ay lahayd. sidoo kale waxa la burburiyay ayaa la yiri maraakiibtii dagaal ay dowladda Ukraine ay lahayd oo hadda aysan jirinba wax markab dagaal ah oo u dagaalamaya dowladda waddankaasi Ukraine. hay-adda guud ee ciidamada waddankaasi Ruushka ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada waddankaasi Ruushka ay dadaalo dheeraad ay ku bixinayaan xakameynta gobolka Donbas, waxaana hadalkooda inta ay ku dareen in magaalooyin ay ka mid tahay Kiev, Kharkiv, Chernihiv, Sumy, Mykolaiv ay yihiin kuwa go'doonsan, kuwaasi oo ay dhinacyadu ay ka joogaan ciidamada waddankaasi Ruushka. waxaana suurtagal ayaa la yiri waqti ka sii dambeeya in ay xoog ay ku galaan ciidamada Ruushka. madaxweynaha waddanka Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu sheegay in ciidamada waddankaasi Ukraine ay khasaaro weyn ay soo gaarsiiyeen ciidamada Ruushka, waxaana la sii wadi doonaa ayuu yiri in la difaaco gobolka Donbas, Kharkiv, Kiev iyo sidoo kale magaalooyinka kale ee ku hareeraysan. sidoo kale waxa uu tilmaamay inay ku qasbi doonaan ciidamada waddankaasi Ruushka in ay banaanka ay ka joogaan magaalooyinkaasi. dhinaca siyaasadda haddii aynu fiirino, madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa khadka telefoonka waxa uu kula hadlay dhigiisa waddankaasi Ukraine. khadkaasi telefoonka ay labada mas-uul ay ku wada hadleen ayaa waxa ay ku carabaabeen sida loogu baahan yahay in sida ugu dhaqsiyaha badan xal looga gaaro arrimaha waddankaasi Ukraine ka taagan. wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ukraine Dmytro Kuleba ayaa waxa uu iska diiday faahfaahin dheeraad ah inuu ka bixiyo qodobada ilaa hadda la isku mari la'yahay ee ku saabsan in dowladda waddankaasi Ruushka ay sii wado wada xaajoodka. sidoo kale waxaa jira 4 ilaa iyo sidoo kale 6 qadiyadood oo ay adag tahay ayaa la yiri in dowladda waddankaasi Ukraine ay ka jawaab celiso, ka oo ay khadka telefoonka ay uga wada hadleen madaxweynaha waddanka Ukraine iyo sidoo kale dhigiisa waddankaasi Turkiga. wariyaha Al Jazeera waxa uu leeyahay jihooyinka rasmiga ee Kiev ayaa hadda waxa ay yihiin kuwo siinaya macluumaad muwaadiniinta magaalada ku sugan si ay guryahoodii baaqi ay ugu sii ahaadaan, daaqadahana ay u sii xirnaadaan, maadaama la tilmaamayo Ruushka inuu isku dayayo in hubka kiimikada uu adeegsado. Wall Street Journal haddii aynu fiirino jariidada ka soo baxda dalkaasi Mareykanka, Washington waxa ay cunaqabateyn ay ballaaran ay ku soo rogaysaa ay leedahay shirkadaha waaweyn ee tiknoolajiyadda siiya ciidamada militariga kuwa sirdoonka ee waddankaasi Ruushka. mas-uul sare oo ka tirsan Pentagon-ka ee waddankaasi Mareykanka waxa uu sheegay in ciidamada Ruushka ay joojiyeen howlgalkii lugta ee dhinaca Kiev. hadda waxa ay xooga saarayaan ayaa la yiri weerarada ay ka wadaan gobolka Donbas. dowladda waddankaasi Ruushka ayaa isku dayeysa ayaa la yiri in gobolkaasi gacanta ay ku dhigto inta aysan miro dhalin ayaa la yiri wada xaajoodka nabadda ee mustaqbalka. dhaqdhaqaaqyada ciidamada Ruushka ayaa waxa ay yihiin ayaa la yiri
kuwa lagu doonayo ayaa la yidhi in lagula wareego ilaa iyo 6 magaalo oo ay hadda dowladda ruushka ay doonayso in ay gacanta ay ku dhigto. madaxweynaha waddankaasi Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa waxa uu isagu shaaca ka qaaday in ciidamada waddankaasi Ukraine ay iyagu ay sii wadi doonaan dadaalada ay ku bixinayaan in ciidamada ruushka aysan u suurtagelin in gudaha ay u soo tallaabaan. jaraa'idada ka soo baxaya waddankaasi ruushka ayaa iyagu waxa ay daabacayaan in xukuumadda Moscow ay qaadi doonto wejigii labaad ee dagaalka dalkaasi Ukraine, waxaana dadaalo lagu bixinayaa ayaa la yidhi in awoodda la isugu geeyo gobolkaasi Donbass. ruushka waxa uu tilmaamay in uu xureyn doono bariga waddankaasi Ukraine, isku day istiraatiijiyadeed uu ku ballaarinayo duulaankiisa. wasaaradda difaaca ee Moscow waxa ay leedahay hadafyada ugu horeeya ee dagaalka waa la soo dhammaystiray, hadda waxaa awoodda la saari doonaa ayaa la yidhi in meelaha go'doonsan ay ciidamada xoog ay ku galaan. waxaa la wiiqay ayaa la yidhi dagaalka ciidamada waddankaasi Ukraine. dowladda waddankaasi ruushka ma aysan xadidin hadafka labaad ee dagaalkan waxa uu noqon doono, balse waxaa la tilmaamayaa in ciidamo horle ay ka tallaabeen dhinaca xuduudda ay wadaagaan wadamada ruushka iyo sidoo kale Ukraine. madaxweynaha waddanka ruushka Vladimir Putin ayaa isagoo waxa uu horay u sheegay in uu hubka dhigista uu ku sameynayo ciidamada waddankaasi Ukraine. hogaamiyaasha xukuumadda ayaa waxa uu ugu baaqay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay isku dhiibaan xukuumadda dalkaasi ruushka. warkaasi waxa uu imaanayaa iyadoo la shaaciyay ayaa la yidhi in janaraalka ciidamada ruushka Sergei Roziko uu isagu shaaca ka qaadayo in howlgalka uu noqon doono mid la sii fuliyo oo la gelin doono wejigiisii labaad marxaladii ugu horeysay maadaama uu kasoo gudbay ciidamada dalkaasi Ukraine. dagaalka ay ku jiraan hadda waa ay ku daaleen ayuu yidhi, waxaana hoos u dhacay awoodoodii iska caabin ay kala hortageen ciidamada waddankaasi ruushka. waxaan sii wadi doonaa dadaaladeeni in laga miro dhaliyo ayuu yidhi hadafka weyn ee ku saabsan in gobolka Donbass laga saaro ciidamada waddankaasi Ukraine. gobolkaasi oo dhaca bariga waddankaasi Ukraine ayaa waxaa la tilmaamay in ay tahay meelaha ugu xooggan ay ciidamada ruushka iyo kooxaha gooni-goosadku ay awoodda weyn ay saarayaan. ciidamada ruushka markii ugu horeysay waxa ay xoog isugu geeyeen sidii ay u jeeri lahaayeen ciidamada militariga ee iyagu ku sugan caasimadda Kiev. waxa ay sameeyeen in ay meelo badan ay ka duqeeyaan oo dhinaca waqooyi galbeed ah si magaalada ay gudaha ay ugu soo galaan. ciidamada waddankaasi Ukraine ilaa hadda waxa ay isku dayayaan in ay iska caabiyaan ciidamada waddankaasi ruushka. dhankoodu waxa ay sheegayaan in ay ku hareereysan yihiin kumanaan ciidamada waddankaasi ruushka, kuwaasi oo lagu qasbayo in ay dib ay u laabtaan. ciidamada ruushka waxa ay sheegteen inay horumar ay ka sameeyeen xeebta ugu weyn ee dhinaca koonfurta ah, halkaasi oo la tilmaamay in ay guulo ay ka soo hoyeen. xukuumadda Moscow waxa ay sheegtay ilaa 93% deegaanada dhinaca bari ee Luhansk ay hadda ay yihiin kuwo iyagu ay maamulayaan. 54% ayaa waxa ay tilmaameen in deegaanada bari ee Donetsk ay tahay meel gacantoodii ku jirto. Andrei Yermak, madaxa xafiiska madaxweynaha waddankaasi Ukraine Volodymyr Zelensky, ayaa waxa uu ka digay in ruushka isku dayayo in uu gebi ahaanba la wareego inta ka dhiman magaalooyinka waddankaasi Ukraine. wasaaradda difaaca ee waddankaasi ruushka waxa ay shaaca ka qaaday in ay howlgalka ay ballaarin doonto ka oo ay ku qasbi doonto ciidamada waddankaasi Ukraine in ay iyagu isdhiibaan ayna hubka ay dhigaan. dagaalka waxa ku barakacay ilaa 10 milyan oo qof oo iyagu isaga cararay dalkaasi Ukraine. qaramada midoobay waxa ay sheegtay ilaa hadda 1,881 qof oo rayid ah in ay geeriyootay, in ka badan 3.7 milyan oo qofna ay wadamada jaarka la waddankaasi Ukraine ay tageen. 2.2 milyan oo qof waxa ay tageen